السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكو soo noqod wanaagsan insha Allah waxaan isku daynaa casharkii labaad waad aragteen ma filaya kana waa kii saddexaad ayuu noqon doonaa insha Allah asaasina ku wadi doonaa aduu ilaa afar shan cashir ama lix cashir waxa qaadanaysa xarfihiisa ayaa qaadanay wixii intaa ka dambeeya waxaan bilaabayaa axmaarigii rasmiga ahaa erayadii wada sheekaysigii naxwihiisii inaad awood u yeelato inaad qof axmaar la hadli karto ku oran karto salaam nawsaari indeetne waa inaad ku oran karto maanta sidee tahay ma fiicanta waa inaad ku oran karto axmaari waa inaad markaas hor baxaa tiraad danaane waa inaad tiraad waa inaad la hadli karto salaam naachu waa inaad ku tiraad haddii fara badan yihiin axmaari waa inaad ku hadli karto haddii aad Itoobiya joogto iyo haddii aad timaadaba haddii aad Soomaaliland joogto waad baran kartaa haddaad joogto in Soomaaliya waad baran kartaa sidoo kale luqadani luqad ka dhib yar waa la waayay waxay ku dhib yar tahay tusaale marka aan leenahay way dhib yar tahay waxa kalifay inay dhab yaraato ma taqaanaa waxa kamid ah erayga Englishka waxa laga yaabaa speak oo kale inaad speech hadana aad aragto laga yaabaa sheekhow laakiin axmaariga waa nagar bijaano hal eray buu noqonaya tusaale ahaan makiina gaari baabuur tareenka u yaqaanaa baabuurka erayna noocaas bilaabi doonaa insha Allah waxaad ka dilmaado baadi waa tiimsaad waa tii afraad waa tiimsaad waa tii labaad raadimsaad waa tii lixaad xarfa yar oo saalaysa u geeyay waxay noqonayaan julmad dhan axmaari laakiin Soomaaliga 10 eray qorta laga yeelado imika tusaale ahaan oo kale kun bay noqonaysaa intan Soomaa soo imika kun ma noqonayso qofkii Itoobiya jiyo garanayaa soo imika kun intaasi ma noqonayso af xawaashi shiin baa lagu dhahdaa xarafkii labadan qaadanay muxuu shaa markaan dhiganay shuuna dhiganay shi taymsaadeed tasdaxaad Soomaa shi imika halka dad ku qorto shi hadaan qoro kun bay saakut kun aan dishin baa oranaysa xabadu ma halkan marinaysa saan ma leed aan dishi waa kun imika huleed shi waa laba asir shi waa 10 kun axmaarigu wuxuu kaga fudiyayo kaaba waa luqadan filayo inay luqadaha ugu fudud ku jirto kana wuxuu noqon doonaa cashirka saddexaad xarfuhu way ka badiyeen kuwii hore afar bay haayeen markii hore maanta laakiin waa qa waa ba waa ta waa ja iyo a fadlan waxaan kula talinayaa sababta inta aan u raacinaya waa inaad xarafkan ku xasuusato goor wuxuu yahay qa bay ahayd tan saan u qolaabta ba bay ahayd tan waa ta tani waa ja tani waa a xarfaha waxaan kugu raaciyay maadaama dad Soomaaliyeed inaad ku barato nasiib ayay tahay inaad qof Soomaali ka barato luqad aadan ajaanibka inaad ka barato way fiican tahay barigan dhiga jiray axmaari baan ka dhiganay axmaaraan ka dhiganay Itoobiya barigan ardayda haynana jaamacad dhigan jiray waxaan ka dhigan jiray macallimiin axmaara oo halkan ahaan sidan kuugu sharaxaynin Soomaaliyan kuugu la hadlaynin amaaraya fidloj ya amaaraya qaan qaawme koodhanaya hay maxaad ka fahmaysaa marka waxbayana hadalka badin insha Allah waxaan dhex gali doonaa cashirka saddexaad halka waxa ku sii qoran quleetan ya Soomaha kalimaanta waa soostan ya soostan ya min baab weeyaan soostan ya min baab aad gaari doontaa soostayana waa saddexaad min baab waa cashirka muxuu noqonayaa Soomaalihan cashirka saddexaad buu noqonayaa insha Allah waan bilaabi doonaa idinkoo maasan ya amaaran ya qaan qa luqada af axmaariga amaaran ya fidal hadii la yiraahdo xaraf axmaari hal xarf noqonaysa oo mid kamid ah amaaran ya fidloj marka la yiraahdo alphabetical of English oo kale u dhigantaa ya amaaran ya fidloj ama amaaran ya fidloj waa xarfaha axmaariga xarfaha axmaariga aan idin xasuusiyo waxay ka kooban yihiin Soomaaliga oo ku ilaatan shibarayaal Soomaa kan soddoniyo afar xaraf baranaysa soddoniyo afar xaraf waxaan filayaa 21 xaraf kamida inay soo noqnoqdaan laakiin way soo noqnoqonayaan qoraal ahaan iyo ka duwan laakiin dhawaqa waa barti tusaale ahaan oo kale waxaynu cashraantii hore qaadanay ha kala soo noqoto waxaynu qaadanay hadana sidana laakiin af Soomaalihan marka lagu dhawaaqayo tan waa haaw hadhow markii aad wax qorayso kale tusaale habti baad qortay habti marka wax xabash waxa lagu yiraahdaa waa hanti baala habtaan
baalahabtaan waa dadkan rich people-ka loo yaqaan waa dadka taajiriinta Elon Musk oo kala garanaysaan miya iyo Bill Gates iyo baalahabtaan baa la yidhahdaa waa dadka hantida iska leh habtina waa hantida ay leeyihiin markaa saasay kala tahay tusaalaan xarfaan soo noqda insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaynu aynu kasii wadna halkaas waxaanu bilaabi doonaa cashirkeena amaaranya fidoloj xarfaha afahmaariga qaabka horan baa lagu dhawaaqaya fadlan intaan xasuusno u i a e iyo o intaa wayna xasuunaata intaa dad xifdiday ahmaariga kuma dhibay 34 xarafeen ku sheego waxa lagu dhawaaqi doonaa qaabka bal ka waran luqad xarfaheedii oo dhan hal qaab lagu dhawaaqay laakiin qoraalkeeda ka duwan ma fahantay saawxoonow tan koowaad maxay noqonaysaa maanta hadaba waa ka wala yiraahdaa ka laakiin adu ina ka aad keenin baa laga yaabaa mar koowaad qa baad u qaadanaysaa mar koowaad hadda marka ahmaariga weyn barato ka aad keeni doona marka imika waxaad u qaataa ka qu qi ka ke ki qo oo halkaas ay tan isaa ugu dhagan tahay waa ki qo ki qo waa qaabka waa adu marka wada qa qu qi qa qe qi qo baad u qaadanaysaa hadhow laakiin marka ahmaariga ku hadalkiisa barato waxay noqonaysaa ka qu qi qa ke ki qo macnaha ahmar badila matalisa wad ka hadlaysaa ka kor laay baad leedahay shirkadda kurgeedo kale tusaalahan xarafka labaad wuxuu noqonayaa waa baade ba bu bi ba be bi bo xasuusnaa mid markii aynu saalahayn casharaanta hore soo qaadanay taasi maxay noqonaysay sa wana xasuunaata taasina maxay noqonaysay sha labadanu ka bi inta ka bi tanna ka bi maxay noqotay ba bay noqotay de tanna buu bay noqotay tanna ba caadi noqotay baad waa intii un xarf korka waxa yar isku ku inta yar xariijinta yar korka ka biiraysa macnuu yeerisa ahmaari waa ba bu bi ba be bi bo mar labadan ku celiyo waa ka qu qi qa ke ki qo talabaad ba bu bi ba be bi bo mar walba xasna waxaan ku dhawaaqayaa waa shaqaladii labadii shaqal baan ku dhawaaqayaa tani maxay noqonaysaa waa ta ba maxaa ku xigta ta tu ti tan ku dhawaaqaye ta te ti to fadlan markan aad ku dhawaaq صح waad maasan tahay maadaama si fiican ugu dhawaaqday hadii kalena ku celi oo si fiican ugu dhawaaqin waa ta tu ti ta te ti to ka iyo ba iyo ta baan qaadanay maxaa ku xiga taada waa ja chu chi cha che chi cho cha chu chi cha che chi cho a baa ku xigta a baa ugu dambaysa cashirkaata waa a u i a e u i o bay noqonaysaa waa a u i a e i o mid xasuusnaada waxaa jirta hadda ka hor waxaan raacin jiray cashirkii koowaad oo kala saad aragteen haadii markii saa qorayd u hi ha he hi markii saa qorayd xarfaan saa raacin jiray xarfiin waxaan uga reebnay qofka hadii intan loogu hoos qoro tan buu akhriyaa Soomaaligan akhriyaa awood ma yeelan inuu Axmaarigan akhriyo marka anagu inuu Axmaari akhrida rabnaa Soomaali ma rabno Soomaali dad rabto 12 maanta ku sheekay inta yar Axmaarigan akhrida la rabaa toban mar bad ku baran kartaa wax insha Allah sababtaan uga reebnayna waa taa casharaanta hore ku jirtay hadda waxaad naga haysaan 4 hore 8 hore 9 10 11 12 13 ayaad naga haysaan 13 xaraf haysaa oo mid 7 ka kooban waxaana kugu yiri waa 34 xaraf maxaad dhigatay imka maanta istijaabi fadlan intan markaad dhigatay inta warqad qaadato ku qor oo feegaar buuga markaad feegaarayso waxaad samaysaa halkii page oo kale imka ka Soomaa
xarafka qaada markii la qoraysa xariijin baad qoranaysaa mid walba waan ku tusayaa dhammaan shanta xaraf waan ku tusayaa qaabka loo qoro qaada koowaad soo qaado xariijin baad sidan leedahay line-kan ku dar daa Soomaali Soomaali noqon xagana kaga dareeyay qaasaasay ku noqotay haddana tu labaad intii la ku dar saa qalooci saana ku dar saasad wadaysaa maxaa ku xigta baaba ku xigta baada sida loo qorbis oo taawiyada sida maxaa ku xigta waata xariijin qoro saar tu kala qoro calaamada blasta saar xagga saa uga dar tu bay noqotay saa u jiifi waati ka soo horjeedi taa fadlan intaa wayna xasuunaata jaabay noqotay hal calaamad qoro taasi maxay taa sameeyaan korkon marka ka dar jaabi saa ku noqotay chu chi cha maxaa u dambeeya aada sanad leedahay intaa ma qorato sanad leedahay sidoo kale haddana ugu celinaysaa waa e calaamadan iyo tan iyo jiitaankani waa waxa u yeelaya macno iminka inay taasi waa taada koobaad inay talabaad noqoto intaa yar baa ka dhigtay inay noqoto intaasaa ka dhigtay intaan baabinay maarta hadda intaasaa ka dhigtay calaamadaha yar fadlan ka tig waxaad ku dadaalaysaa intaa yar inaad qorto si fiican u qorto si hadhow aad soo daydo inaad u qori karto kelmad axmaariya tusaale taabeen qaadanay Soomaa waa xarfi koowaad maada ayaa xasuusta marka atiya afraad raadaasina 10kii labaad ati saddexaad tamari afcaash arday baa ku tamarine hadii la yiraahdo ma arday baad tamarine jana astamari ay dhalhum baad leedahay wali macallin ma noqon tamari saasi ku dhibiyay saddexda xaraf la isu geeyay arday noqotay af Soomaali fiir balhay arday waa 1 2 3 4 5 1 2 3 ina ka fuuday maxaa ku cadeynaysa laba xaraf saddex xaraf ayaa waxay noqotay inaga meel noqotay Soomaalihan 5 xaraf fadlan isku day inaad cashiraantii hore soo feegaarto kuwana aad ka war hayso labada cashir isku xiga waxaan soo gelinay maadaama aan kii hore soo gelinay ay dad badan soo weydiiyeen waxaad raali ka ahaanaysaan inuu kala go yara yimiday intaanu bilownay aan waqti u yar weynay insha Allah hadda kadib waxaanu sameeynaa waqtigeega ayaanu qayb ka jari doonaa maalinka khamiista oo kale jimcaha oo kale maalinka arbacada oo kale oo maanta maalinka aan arbacada ah aan duumnay cashirka ah saacad baan isku diid doonaa intaanu soo qorray inaanu idin diyaarino arday macadad diin iyo iska dhigta baan nahay waxoogaa maadiga axmaariga waxa keenay inaanu dhigano waxaan waxbarasho waaday Ethiopia markaan waxbarasho u tagay galaas waxaan dhex fadhiistay 90 iyo dhowr qof oo Ethiopian ah oo dad Soomaali ka tahay maxaad filan lahayd maxaad ku hadli lahayd salaamna chu marka la yiraahdo maxaad oranaysaa salaamne danaane waxay u kalifeenaan barato luqad waa taas sidoo kale waxaan mid ka ogeysiinayaa inaadan helaynin sida lagu helo way adagtay macallin Soomaaliya oo Soomaali kuugu bedela sidoo kale waxaan sameyn doonaa insha Allah marka casharaantii noo bataan English baan ku bedeli doonaa xitaa qofka English ka fahmaya English tulmada English aad qoraysaa axmaari baan ku bedeli doonaa tu Soomaaliyan qorina axmaari baan ku bedeli doonaa luqadaha saas soo dhaxwada doonaa insha Allah isku day inaad noqoto adoo gurigaaga jooga ama goobtaada qof luqada axmaariga baran kara Ethiopia luqada koowaad deegaan walba luqadiisa koowaad baa haystaa laakiin luqada koowaad Ethiopia marka la eego dalka waa axmaari axmaarada taqaana meesha doontaa soo goosh kartaa Addis Ababa tagi bahardar bad ka dagaysaa Soomaaliya kalal bad ka dagaysaa mid kale ogsoonow dadka baasaboorka jecel qofka axmaariga yaqaan looma diido taana ogsoonaada waa baasaboor والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي عشران طالع حديدة السؤالة كومنتي إن شاء الله نوصل لك دونتان وحن اسكت دونا إنه صفي عن إن شاء الله إذا كودنا هذا يدوم سنتين هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته